horta jacaylka waxa ka aaminsanahay wax wanaagsan soo horta bini'aadamka waxay taa mutaqaanaa jacaylka waxa leeyahay mutaqaanaa jacaylka ay xumeeyay jacaylka ay dhaawacay waxaas ka aaminsan yihiin soo jacaylka dad ma dhaawaco sax soo dadka qaar si qaldan u isticmaalaan kadibna qofku markuu si qaldan u isticmaalo qofka loo dhaawac ku reebaya sax jacaylka la eedeynaa jacayl khalad ma lahan waayo qofka jeclaanaysa ama qofka qalbigaaga siinaysa ka fiirso waxaan aaminsanahay jacaylku inuu wax wanaagsan yahay sida hadda aniga noo soo dhalay ma fahanti maadaama jacaylku soo dhalay mar jacaylan soo barbaarinaa mar jacaylku wax fiican ka aaminsanahay صح السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهنتي بداودي سو دودا قال نقد داون سو قرأتك أوفيشيال هدي تامر كجورس هنصبقت هاي ما بين السبسكرايب تراو لايك شير كومنت ها عاو يا ينوم channel كاغا مر لبادان كسو موقنو صح وي مركي كويت marka kood miya markii goorisa ka soo noqotay la meetay ya marka labaad dhima laha asxaabta marka labaad kaaga dhigaysa marka kood waxa mataqaana farxada iga tambad maadaama aan channelka ku cusbaano aad weyn laba maran ka dhigtay aad weyn ma sha Allah asxaabi caawo saarkisan waxay noo casuumay walaalkay anusayga ma sha Allah anusayga soo dhow mar labaad horta waa dhabahay asxaabtiisa iyo asxaabteeda waxaan leeyahay aad iyo aad salaamaya sidoo hor noo sheegay channelkiisa dab cusubta subscribe like share comment marka hadda saaxiibkay waxa uu wadaa barnaamij xasaasi ah hor dhacay marka waxa la soo day aan jawaabaha la asal su'aalo leeyahay aad weyn ma sha Allah asxaabi barnaamij ina xariisayaan ايوه ان شاء الله وجهي عددنا يديرتين وجهي وكنا حريصين يا صاحبي اصحاب البرنامج هو برنامج هوري نوغو سوداي ساولو سوتينبا وانا qofkii toddobaad aan ku soo casuumo barnaamijkan ma sha Allah anoo sheega ma jira jacayl jab ku reebay jab ku reebay aad weyn anu maxaa ka aaminsantahay jacaylka laftigiisa horta jacaylka waxa ka aaminsanahay wax wanaagsan soo horta bini'aadamka waxay taa mutaqaanaa jacaylka waxa leeyahay mutaqaanaa jacaylka ay xumeeyay jacaylka ay dhaawacay waxaas ka aaminsan yihiin soo jacaylka dad ma dhaawaco sax soo dadka qaar si qaldan u isticmaalaan kadibna qofku markuu si qaldan u isticmaalo qofka loo dhaawac ku reebaya sax jacaylka la eedeynaa jacayl khalad ma lahan waayo qofka jeclaanaysa ama qofka qalbigaaga siinaysa ka fiirso waxaan aaminsanahay jacaylku inuu wax wanaagsan yahay sida hadda aniga noo soo dhalay ma fahanti maadaama jacaylku soo dhalay mar jacaylan soo barbaarinaa mar jacaylku wax fiican ka aaminsanahay صح anu miyadad ku yaqaan asxaabta misasayga wallahi dhanka Instagramka dhanka Facebooka Snapchatka dad qaar anu say yaqaanaan dadka YouTube-ka oo ku xiran waxay yaqaan say comedian markii qaar dad isirjin gareenayo gabdha qaar markay luuqay la soo hadlana cibaankiisa sax soo arkaan waxay leeyihiin cibaanka say comedian aqoon waa ku weyn soo maadaama maaragtay sayga yiraahdeen qaar marka laakiin anu say hadda badnaan anu say yaqaana aad weyn saygu jacaylka kugu horeeya ku soo mara ma ku guuleystay mise ku guuldareystay horta noo ibtilada taala waxay taa mutaqaana badnaan iyo Soomaalida kuma guuleystaan jacaylka koow aad weyn horta ma sha Allah jacaylkayga uu horeeyay oo soo maray farxad iyo rareen laakiin calaf ma yeeshanin waa nasiibka waxa walba jacaylka waxa ka weyn calaf marka calafkana kala kaxeey sayga ma jira jacayl ma jira ruux aad jeclayd oo xiriir lahaydeen aad kala harteen misna xawli xasuustida jeclaan lahayd maanta inuu dib kugu soo laabto wallahi qof maanta aan jeclahay in maaragtay oo aan kala tagnay soo laabtan jecel sababtoo ah qofkii shalay markuu iga tagay soo ii jeedo iga tagay sax maanta inuu ii soo laabto ma ku fikiro mar qof oo iga tago soo iga tagay ahaanaysa jaanisada maaragtay waxa laga yaabaa qof ku jecel kale inaa hesho oo daryeela sax qof markaa tagto maxaa ka rabtaa maxaa ku daba carray bas ka dhaafay aad weyn wali jacayl dartiis ilaa ma kaaga timid ha alright imika wax xiriir ma leedahay ha aad weyn ma jirtaa dhibaato marka ka soo martay jacaylka wallahi jacayl dhibaato badan ay soo martay kolkayga hadii la fiiriyo diiray ajal hada badan ku dhaafay jacayl dartiisa maaragtay inaanu yaraan guri aan ka soo baxsada gabar darteedo waqtigaas mobile ma jirin waraaqadina wax soo qoraa luuq inaan galaa maaragtay mukulaashi aan isaag mariyay
laakiin loo qeyrabtaa ma soo gali karto ma soo gali karto iga cabsanaysa anaa meesha taagan aad u weyn marka maasha Allah jecel oo soo maray maasha Allah ana xasuustaa okay waa su'aashii ugu dambeysay markaad isqabataan ruuxa aad jeceshahay aad jeclaydeen heesee jeclaan jirtay inaad dhageysato ama heestee inta badan dhageysan jirtay qof marka oo aan isku dhacnaa may jacaylkaada qofka xiriirka la leedahay marka is dagaalna ama marka u xiiso marka is qabataan ama marka u xiistaa kala fogaataan heesee dhageysan jirtay ama heestee jeclaan jirtay inaad dhageysato inta badan ama qaadi jirtay wallaahi qof markuu hadda amal markii iga dhoof amal maaragtay bariyan gaar aan is jeclaan amal hees waxaa jirtay oo amorme oo marna wax qaadi Sabrina ayuu ma arkaan ruux kale naf meel leer ka jirtay dambaalada soo diro dhaqsan igu soo heesaasa jirto sax marka qaar waxa dhageysan jirnay macaa hilaac event aadaw masha Allah heesaasa jeclaan jiray okay guntii gabagabadii barnaamijka maxaa leedahay asxaabteeda asxaabta Allah yahay horta maanta waa la soo qabtay aadaw waan ku faraxsanahay وانا walaalkii inay janalkiisa aan soo muuqdo farxad ay tahay maadaama aan garow wada joogno sax aan caweyneyno afraxsana waa dadka garow ma arag uu soo dhabeeyay waaye ma sha Allah hadana waxa farxad cameraman oo farta ka xiran ma sha Allah reer garow dhan ma aragtay dhalinyarada sigoo shilinka qaadanayeen waxba ka qaadanayeen oo inuu waqti soo bixiyo u doowa ma sha Allah midaasna aad iyo aad kaaga mahad celinaya shaqada waxaan rajaynayaa ma aragtay meesha rabtin hormarkeed inaad tigsato insha Allah aadaw marka asxaabta aadan salaamaya hadii barnaamijka dhimanaya waa sii waday karnaa may barnaamij diyaar ah insha Allah barnaamijka dambe insha Allah waan kulmi doonaa asxaabi waxaad leenahay barnaamijka xigeenta ku kulmi doono aniga sheego isku duwano idin leh wassalaamu calaykum warahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh